Waxaa xaqiiq ah inay jiraan dad badan oo ka cabsada clown mask-ga ama mask-yada wejiga lagu xirto, balse aniga maanan ahayn mid kuwaas oo kaleeta ah oo ka cabsada clown mask-gaas ilaa laga gaaro habeen habeenada ka mid ah. Habeenkaas aniga iyo xaaskayga iyo cunugayga waxaan ka soo wada cashaynay makhaayad Shiinees ah, waana soo baxnay waxaana soo aadnay gurigeena. Cunugayga waxa uu ku soo dhex seexday gaariga dhexdiisa. Markii aan guriga imaanayna waan soo qaaday waxaana keenay sariirtiisa. Markii aan sariirtiisa keenay oo damcay inaan seexdo ayaan waxaan maqalnay albaabka oo la garaacayo. Xaaskayga ayaa igu tiri "Yuhu yahay qofka xilligan nagu soo garaacayo?" Waxaana ku dhahay aniga ayaa soo hubinaya soona fiirinaya isug. Waan soo degtay qaybtaas ayaan soo degtay. Waxaana maqlay qof dhahayo "I caawiya, i caawiya." Waxayna ahayd qof haweeney. Waxayna dhahaysay ninkayga ayaa i dilayo ee albaabkayga fur. Waxaan weydiiyey booliiska ma wacday oo mala hadashay. Waxaana igu tiri kama gaari ee iga fur albaabka marka hore aan guriga soo galo. Waxaana ku dhahay sug sug sug. Jeebkayga ayaa gacanta geliyay si aan furaha u soo bixiyo. Furihii markaan soo bixiyo albaabka aan furi rabo ayaan fikiray waxaana dhahay qofkan maxaa ka qaldan, qof cabsanaya ma u eko. Waxaana ku dhahay maxaa dhacayna ninka maxaa isku haysatiin. Waxayna igu tiri ninka waa uu jiifay markuu soo kacayna waxa uu igu bilaabay garaacitaan iyo inuu soo bursado. Anigii waa shakiyay waxaana isweydiiyay hadduu ninkan bursanayo xilligan mar ayuu qaban lahaa wax badan ay nala taagan tahay qofkan. Markaasaan dareemay qofkan inuusan ahayn qof la bursanayo. Waxaana ku dhahay ciyaarta iga daa ee orod iga tag haddii kale booliiska ayaan kuugu wacayaa. Taleefankayga ayaan la soo baxay si aan booliiska u waco. Wax yar kadib isla markiiba waxaan maqlay cod kaleeto oo ka soo yeeraya isla albaabka. Waxayna dhahaysaa naagtaas kaleeto albaabkayga fur, waxaan ahay qof caawimaad u baahan. Waxaana ku dhahay waa khaldan tahay, iga tag hadda ayaan booliiska wacayaa, hana igu ciyaarin. Waxayna dhahday banaanka waa ku qaboobay, iga fur albaabka, horta gudahaan ku wada hadlayna albaabkayga fur. Anigii waan yaabay, aad ayaan u sexrooday. waxaan dhahay ugu weyn kula kaftamin booliiskana hadda ayaan wacayaa, hadda baan kuu sheegay ee bax idhaaf aan kaa seexanay. qofka wuu isku bedelay waxaana bilaabay inuu si xanaaq leh u hadlo weliba uu qaylinayo dhahayo fur albaabka horiyaa, fur albaabka. anigii waan nacay, gadaal ayaan u booday. markiina waa carar xaaskayga ayaan ku dhahay dhaqso booliiska wac booliiska. waxaana dareemay qofkan inuu yahay qof anakana soo weeraray mindi ayaana la soo booday. isla markii waxaana soo aaday dhanka daaqadda si aan uga fiiriyo isaga. markaas taas daaqadii u soo istaagay ayaan wax yar waxaan gees ku leexay baasha. waxaanba arkay nin wejiga maask ku qabo, weliba maask aad u cabsi leh. naxdin dareedeeda gadaal ayaanu dhacay, mindidiina waa iga dhacday. waa uu ii soo dhowaaday ninkii ama bahalkii, wuxuuna soo qaaday mindida kor ayuuna u qaaday. xaaskayga ayaana meesha soo gashay iyadoo aad u nacday. waxaasoo dhanna waxaa ka sii darnaa markii aan arkay 5 kaleeto oo isla kaasoo kaleeto amaba wejigaas oo kala wataan oo isla qolkii ku dhex jiraan. aad ayaan u cabsaday, cabsideedana aad ayay u sii ziyaaday. waxayna ahaayeen kuwo wato maaskiyo kala duwan, balse maaskigaas dhammaantood waxa uu ahaa mid aad u cabsi badan. xaaskayga ayaana timid waxaan dhihi maxaa meesha ka dhacayo. waxaana ku dhahay orod adiga iska carar, waxaadna wacdaa booliiska si degdeg ku wac, orod iska bax. waxaana igu tiri ii sheeg maxaa dhacayo. waxaana ku dhahay orod adiga iska bax, walaa baahnaad ogaatid. albaabkii ayaana sidii loo garaacayay. waxaana aaday mid ka mida iyaga dhankii albaabka. albaabkii ayuuna ka soo furay qofkii taagnaa. wuxuuna qofkaas ahaa midkii iyaga u talinayay ama midkii iyaga ugu weynaa. wuxuuna igu yidhi hawraa maxaa isla adkeynaysa, miyaadan u cabsanaynin faamiligaaga, carruurtaada iyo xaaskaaga. wuxuuna la soo baxay biskoolad, madaxa ayuuna iga saaray. wuxuuna u muuqday mid aanan kaftamaynin amaba aanan wax xiisaa u haynin noloshayda. anigii naxdinta ayaa igu tira badatay. waxaana dareemayay in fartiisa ay u dhoweyd inuu taabto, inay xabad igu soo rido. waxaana dareemay inay tahay markii ugu dambeysay aan noolaan lahayn. dhahayaana isku qabtay. wax yar kadib waxaan dareemay biyo wejigayga taataabanaya amaba biyo in lagu shubayo oo kaleeto. markaan indhaha kala qaadayna waxaanba arkay inay biskooladu tahay tii carruurta oo ay biyo ka da'ayaan.
waxayna bilaabeen dhammaantood inay aniga igu qosqoslaan. anigana aad ayaan u cabsanay, waxaana dhahay maxaad san igu samaynaysaan? wuxuuna igu yidhi sabab la'aan. wuxuuna bilaabay inuu ku ciyaaro waxyaabo yaryar ah oo isagu watay. waxaana dhahay booliiska ayaa imaanaya, haddaba ogaaw. wuxuuna yidhi xaaskaaga 3 daqiiqo oo keliya ka hor ayay wacday, waxayna imaanayaan booliiska 12 daqiiqo kadib. waxaan haysanaa fursad aad u weyn oo aan idinku dili karno adiga iyo faamiligaaga. maxay tahay sababteeda aniga nagu dilaysid? annaga waxaan anay ayuu dhahay tiim isku xiran, rabnana inaan noqono kuwo aad u adag lagana cabsado, sidoo kalena magacooda uu caan noqdo, weliba iyagoona la aqoonin. sidoo kaleeto qoysaska idinka oo kaleeta ah oo masaakiinta ah waxaan u dilinaa maalaa yacni si iska baashaal ah oo iskaykiin baashaaleyno iyo raaxo yar aan idinku dareemayno dilkiina amaba qayladiina. dhisid ayaa iga soo daatay, waxaana ku dhahay waad waalan tahay adinka, waadna waalantiin dhammaantiin. wuxuuna dhahay midaas waan ognahay, waana ka warqabnaa. mid ka mid a ayuuna wuxuu ku yidhi buufintii soo ma haysiin? wuxuuna igu dhahay ma ogtahay haddii aad buufintaas afkaaga geliyo oo aad ku dhex neefsato oo ay buufinta caariyeysmato inaan dili doono adiga iyo dhammaan wixii guriga joogo. haddaba iska taxadar oo buufintaas haddaba isku neefsanin. haddii ay caariyeysmato ogow waad dhimanaysaan adiga iyo qoyskaaga oo idil. wax yar kadib waxaa soo yeeray codkii booliiska amaba gaariyaashii booliiska. dhammaantoodna waxay bilaabeen maxaa khaldan? 9 daqiiqo ayaa binoo dhanneede, maxaa khaldan? dhaqso ayay soo imaadeen. markii waxay bilaabeen nabada aan baxno iyo inay isku yeeraan. waxayna ka baxeen daaqadda dhanka jikada, gadaal ayayna saas oga baxeen. wax yar kadibna waxaa meeshii soo gaaray gaariyaashii booliiska. markii ay saas u yimaadeenna waxa ay bilaabeen inay ka raadiyaan agagaarka gurigeenna iyo dhammaan gees walba oo gurigeena laga soo geli karo, balse waxba ma soo faa'iidin oo lama qabanin kuwii. maalinkaas kadib waan kasoo guurnay gurigii. xilli kastoo waan arkana wax ku saabsan clown maskiga amaba maskiyada wejiga lagu xirto, waxaan ka qabay cabsi aad u daran. waxaan rajaynayaa inaadan ku kalsoonaan qof wejigaas wato.